barnaamijka dalakaab waa barnaamij heer qaran ah oo xukuumadda Soomaaliland uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu talagashay dhiirigelinta wax soo saarka beeralayda dalka si kor loogu qaado tabcashada beeraha iyo inay beeralaydu helaan dhaqaale ay ka qayb noqdaan kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo sidoo kale dalagyada laga soo iibsaday beeralayda in lagu kaydiyo kaydka raashinka qaranka si ay xukuumaddu uga hortagto masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha, raashin yaraanta iyo wixii lamid ah. waxaana daafurka wajiga koowaad ee barnaamijkan maanta laga daafuray xarunta kaydka raashinka qaranka ee magaalada Gabil iyo caasimadda gobolka oo maanta si rasmi loogu daafuray wajiga koowaad. waxaana halkaas goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Injineer Maxamed Iimaan iyo sidoo kale gudoomiyaha kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh iyo sidoo kale agaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxaa halkaas goobjoog ahaa isduwayaasha laamaha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Gabiley ee kaydka raashinka qaranka Cabdinaasir iyo sidoo wasaaradda horumarinta reer miyiga gobolka Gabiley Maxamuud Sheekh. ugu horreyn mas'uuliyiinta halkaas ka hadlaya hoos ka xariiqeen barnaamijkan uu kor u qaadayo beeralayda kale iyo sidoo kale wax soo saarka dalka. waxaan u joognaa inaanu kayd qaran ahaan ama hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinku ay la wareegto raashinkii laga soo iibiyay bulshada gobolka Gabiley taasoo loogu talagalay in la kaydiyo dadka bulshada ee wax beeratay ama dadka wax beertana ay u noqoto suuq dawladdu ay ka soo iibsato qaran ahaan aynu kaydsano oo loogu talagalay hadhow haday wax yimaadaan ama dhawaarooyin ama wax lamida inaanu kayd qaran u hayno. wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kastoo ka soo shaqeysay waanu mahad celinaa iyo guud ahaan xukuumadda oo madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayo. anagu waxaan u taaganahay inaanu wixii kolba dawladdu ugu talagashay inay kaydiso inaanu kaydino gobol Gabiley ahaan waxaan u diyaarsanahay ama gudoomiyaha hay'adda Nadfor uu bakhaarada iyo xafiiska quruxda badan buu sameeyay in wixii gobolka ka soo bax lagu kaydiyo ama gobolada galbeedka. waxaan insha Allah ku dadaali doonaa nadaafadda iyo ilaalinta raashinka maanta halkaan lagu wareejinayo. maanta oo taariikhdu tahay labadii bishii shanaad 2023 waxa halkan lagu diyaariyay qayb ka mid ah mashruucii dalakaab ee dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu talagashay in la kaabo beeralayda si suuq looga heli lahaa isla markaana raashinkii ka soo gaay dalka sanadkiina dhaafay ayaa waxaa laga soo iibiyay beeralayda qayb ka mid ah. halkan maanta waxaa ku diyaaran markaas 3900 oo kiish oo ah wajigii koowaad. ujeeddada mashruucaas waxa weeyaan si loo dhiirigelin lahaa u helida suuqa wax soo saarka beeralayda. markaa wasiir iyo gudoomiye waxa maanta halkan loogu diyaaraa oo ay diyaarisay shirkaddii qandaraas qaatay ee Jadeer raashinkii wajigii koowaad oo ah 3900 oo kiish oo kiishkii baa ku jiraan 50 kilogram oo haruurkii sanadka soo gaaya oo haruurkii localka ahaa. runtii farxad bay maanta noo tahay. maanta ay taariikhdu tahay 2 bisha May 2023 in uu hirgalo mashruuc muddo runtii laga soo shaqeynayay oo saddex geesood ahaa oo uu asaaskeedana lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu sameeyay si loo dhiirigeliyo dadka beeralayda ah loogu talagalay in laga iibsado dabadna mucaawino dadka lagu siiyo baahan ee ummadeena baahan. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in wajigii koowaad maanta uu inoo hirgalo oo shirkadaasi ay inoo soo dhamaysay wasaaraduna runtii ay liid ka ahayd. waxaa nagala shaqeynayay wasaaradda maaliyadda, wasaaradda beeraha iyo Nadfor baa wada jir saddex geesoodkaas runtii ayaa ka shaqeynayay iyo shirkadda. marka runtii aad iyo aad baan wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda runtii aan ugu mahad celinaynaa. tirada maanta halkan la keenay waxa weeye 3900 oo kiish oo min 50 kiilo ah oo ah garow ama haruur waxaanu naqaano kaasoo aynu dhigi doono xarunta kaydka ee Gabiley laguna dhiirigelinayo dadkii laga soo iibsaday beeralayda localka ahaa siina socon doono mashruucaasi. waxaan rajaynayaa insha Allah kariim inuu noqdo mashruuc faa'iido badan ummadda u yeesha waayo marar badan oo wax soo baxaan waxa laga yaabaa inay ku jabaan dadka laba meelood ay kaga jabaan oo mararka qaarna dhinaca khudraddu ay Itoobiya ama meelo kale ay uga timaado taasna ay keento in ay dib u beeri waayaan dadkii beeralayda. taana runtii waxa ku dhiirigelinaa wasaaradda in ay ka shaqeyso in cashuur la saaro maadaama ay energy jaban ayagu ay helaan oo aanay helin beeralaydeennuna ay energy qaaliya runtii
oo shidaal iyo kos badan ay ku soo saarto wax marka taasina waxay u baahan tahay qaran ahaan inaynu ka fikirno in qiimaha cashuurta la kordhiyo khudradda iyo waxyaabaha soo galay taasi waa qodobka labaadna aynu dhiiri gelino dadkeena wax soo saarka xagga cerealka ama midhaha soo saara oo ay degmadan Gabiley ka mid tahay oo Awdal ka mid yahay oo Maroodi Jeex ka mid yahay oo Togdheer ay ka mid tahay oo Oodweyne uu ka mid yahay deegaamo fara badan baa runtii wax laga soo saara marka taasina waxay keenaysaa maadaama dunidii ay cunadii crisis badan uu jiro aynu ognahay dhibaatada ay dunida gaarsiisay qamaddigii Russia iyo ka soo baxayay Ukraine markii dagaaladu ay bilaabmeen dunidoo dhan runtii sicirkii wax soo saarka oo dhan runtii ay marka wax la beerto waxa ku xiga dadaal uu gaara marka beerashada iyo dawladda siyaasadda ay ka leedahay in ay shacabka ka iibsato dalaga beeraha uga soo go'a waa siyaasadda dawladda waqti dambeenu kullu taaganahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ay shirkadda Shadeer technology ugu wareejinayso waan uga mahadnaqaynaa shaqada ay soo qabteen wanaagsaneyd raashinkan inoo xarooday waa garow waa cilmi jaamac waa raashinkii sanadkan go'ay 2022 waa raashin nadiif ah waxaanaynu ku kaydin doonaa waanu ku wareejin doonaa mas'uuliyadiisa Narford waxaarka naga dambeeya lagu xareynayaa halkan waxa laga lahaa siyaasadan ama madaxweynaha qaranku mudane Muuse Biixi Cabdi markuu barnaamijkan bilaabay wuxuu uga dan lahaa 3 faa'iido ama 3 ujeedo ayuu madaxweynuhu uga dan lahaa ujeedada koowaad waxay ahayd in la dhiiri geliyo beeralaydu markay beeraan ay qodaalkii sameeyaan ay ku tabcaan in laga iibsado halka ka iman lahayd cunto ka jaban oo dibadda inaga timi oo toodu markaas ku baabi'i lahayd ama ku bi'i lahayd marka waa in la dhiiri geliyaa bay ahayd inay wax soo saarka kor u qaadaan laba in lagaga iibsado lacag hard currency oo jeebkooda ku dhacaysa si ay haddana tacabka labaad ay u sameeyaan saddex in lagu caawiyo raashinka kaydka ah dadkeena abaaruhu ku dhacaan ama dadkeena danyarta ama dadka baahanba in lagu caawiyo marka saddexdaa ujeedo madaxweynuhu ka dan lahaa saddexdii ujeedana way fuleen oo horena way u fuleen maantana wajigii koowaad sanadkan 2023 ayaanu bilownay wajigii labaad ba ku xigaya dhawaan oo isagana laga howlgalaya iyo wajigii saddexaad oo sanadka dhamaadkiisa saddexdaa koor baa la ururinaya oo kaydka la dhigaya halkan de waxaan anoo ka faa'iideysanaya waxaan maxayde ka dirayaa fariintan diraya waxa weeye waqtigii roobaadkeenu ku jirnaa fariinta caadiyan waan diraa waxaan leeyahay ha laga faa'iideysto qodaalkii ha la qodo beerihii ha la qodo ha la foorarsado food security-geena waa inaynu kor u qaadnaa roobka ilaahay iyo nimcada aynu siiyeen aynu ka faa'iideysanaa nimcadii waliba inoo soo hormariyay way la xajin telefishinka qaranka Gabiley.